الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد والله على المركل واحد كسر دواتان برنامج كيني نيوتريشن كيدايتك أما عنتدة إيه عافمانك ما أنت وحن جعلها إن كسر قد بيو برنامج كينا ما أنت قاعدة عنتد وحقيقي آد وفي عن أنا قيمة بدن قف والمركز يعني وحواي عشرة وحكبرتنا أصلي هي واحد بدن أيو كفهم يا عرمها عنتدة ayayna qaacidadaas ku saabsan tahay qaacidada waxaan ka aqriyay book la yiraahdo magaciisa it starts with food yani wax walba waxay ka bilaabaan cuntada boogan waa book xaqiiqi aad u qiimo badan waxa qortay qof la yiraahdo magaceeda Melissa Hartwig ayaa la yiraahdaa marka arimaha nutritionka iyo dietka iyo cuntada caafimaadka nafaqada sida ay isku xiriiraan ay wax badan ku sameysay research ama cilmi baaris ay ku sameysay marka qaacidooyin badan ayaa buugan ku qoran laakiin hal qaacido ayaan maanta ka soo qaadanaynaa qaacidadaasna waxaan leeyahay dadku wax badan ay ka fahmi doonaan qofkii rabo markaas in uu cuntadiisa daryeelo caafimaadkiisa daryeelo xaqiiqii qaacidadan waxa la dhahaa magaceeda +1 or -1 +1 or -1 waaye maxaa looga dan leeyahay +1 or -1 maxaa looga dan leeyahay yani waxay ku soo bandhigaysaa qoraayo buugan waxay ku soo bandhigaysaa buugeeda yani cunto walba aad cunaysid waxay ku leedahay cuntadaas laba u kala baxdaa waxay noqon kartaa cunto jirkaaga adiga nafsadaada hormarinaysa ama cunto nafsadaada dib u dhac u keenaysa labadaas ay u dhaxaysaa si kale hadii aan u qeexno ama aan wax hadalno cunto walba aad cunaysid laba ay u kala baxdaa ama waxay noqonaysaa cunto daawo ku noqonayso adiga wax ku tarayso ama waxay noqonaysaa cunto adiga ku dilaysa oo waxa weeye daawac ku keenaysa labadaas ay u kala baxaan cunto walba oo markaas jirkaaga iyo afkaaga aad gelinaysid wax u dhaxeeya madaha hal meel ma istaagayso cunto walba aad cuntid saameyn horumar ah oo nafsadaada aad horumarinaysid maskaxdaada horumarinaysid ayay kuu lahaanaysaa ama saameyn nafsadaada aad dib u dhac u keenaysa ama xanuun kuu keenayso ayay ku lahaanaysaa jirkaaga haddii aan wax yar sii sharaxno anagoo waqtiga koobayno maadaama hal qaacdo kaliya aan ka hadlayno maanta waxa waaye yacni cunto walbaad cunaysid waxay ku leedahay waxay nafsadaada horumarinaysaa hore ayay u wadaysaa ama nafsadaada gadaal ayay u wadaysaa marka ama nafsadaada hore ayay u wadaysaa waxa weeye step forward waaye oo hore ayaa u soconaysaa oo yacni caafimaadkii ayay kuu sahlaysaa mataqaanaa jirkaaga wax badan iyo maskaxdaada ayay ka helaysaa xagga nafaqada iyo macdanta iyo vitaminka iyo fiberka dhinac walba oo cunto waxay noqonaysaa waxaas oo dhan midna aan lahayn oo markaas waxa way xanuun ku keenay way talabaad waxa kamid ah cuntadaas waxay noqonaysaa cunto maskaxdaada wax u tarta oo brain power waxa ay dhahaan ama awoodda maskaxda wax badan ku siinaysa ama waxay noqonaysaa cunto hoos u dhigaysa awoodda energy-ga ee maskaxda brain energy-gaaga hoos u dhigaysa ayay noqonaysaa ama waxa waaye energy-gaaga xagga maskaxda ayay kor u qaadaysaa tan kale waxa waaye cuntadaas waxay noqonaysaa cunto unugyadaada dhisi karta cells-kaaga ayay dhisi kartaa oo waxa weeye adkeynaysaa waxa lagu tilmaamaa xanuunada qaar waxay ka bilaabaan cells-ka oo markaas dabacsan ama waxay noqonaysaa cunto daawacda oo dhib u keenta unugyadaada cells-kaaga cuntadaas waxay noqon kartaa cunto jirkaaga awood fiican siisa nafaqo fiican siisa macdan fiican siisa yani waxa weeye vitamin fiican siisa ama waxay noqon kartaa cunto markaas jirkaaga daciif ku rida oo markaas waxa waaye jirkaaga uu noqdo jir aad u daciifsan oo wax markaas u sahlan xanuun oo aad u sahlan marka casharkeena maanta ku saabsan yahay qaacido la yiraahdo +1 or -1 xagga cuntada cunto walba ama horumar ay jirkaaga u keenaysaa maskaxdaada u keenaysaa ama dib dhac ay u keenaysaa maskaxdaada iyo jirkaaga dib dhac ay u keenaysaa marka waxaan ka soo qaatay book la yiraahdo it starts with food oo ay qortay gabar la yiraahdo Melissa Hartwig insha Allah ta'ala waxaan jeclahay inaad wax badan ka faa'iideyno casharkeena maanta intaan casharka ku xigay cuntada caafimaadka iska arki doono
waxaan kaga tegayaa sidaas salaanta islaamka waxaan rabaa inaad videoga la wadaagtaan dad kale ee saaxiibadiin ah walaalihiin ah dadka kale ee jooga yacni meelaha aad joogtaan waxaan kaga tegayaa sidaas salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu